abaar iyo col iyo dhibaato jiirkaan biyo ah haddii ilaa 8 kun la dhahay ma ku tukanaa ma dharaan ku dhaqanaa ma ku qubaysanaa meel iska qabanaa weyne marka adiga dhibaatadaas una soo wada hadduu ilaahay yiraaho waxaan u baahannahay muslimiinta Soomaaliyeed inay na caawiso ay waxna siiso bisha Ramadaan fadligeeda ay nagu soo dhaweyso ayaan codsanaynaa iyadoo laga sii ambaqaadayo barnaamijka afurinta dadka danta yar ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho ayaa ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo sanad waliba waxaa loogu bartay inay afuriyaan qoysaska danta yar ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo mudane Abuukar Shuuto Xuseen iyo wafdi hogaaminayo ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho kormeerkan ayaa diiradda lagu saarayay si uu ururka Doosyo u qorsheeyay meelaha ay ku haboon tahay in ururka Doosyo uu ka fuliyo sanadkan barnaamijka afurinta ee bisha barakeysan ee Ramadaan ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ayaa sanadkii 7aad oo xiriir ah si joogto ah u fulinaya barnaamijka afurinta dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho iyadoo sanadkan dalka saameeyay abaaro xooggan ayaa ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo oo qorsheynaya inuu dhowr goobood uu ku qabto barnaamijka afurinta si loo wada gaaro dadka danta yar ee ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo mudane Abuukar Shuuto Xuseen ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyay in afurinta lagu bilaabi doono kaamka la yiraahdo nafta waa biyo isla markaana ay ka afurin doonaan qoysas gaaraya ilaa 500 oo qoys waxaan ka soconaa ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo Doosyo waxaan soo booqanay maanta dowladka magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafad degmada Kaxda xaafadan Sarta Dulsan kaam la yiraahdo nafta waa biyo ayaan joognaa si aan soo kormeerno oo indheyno aan u aragno dadka danyarta ah barakacayaasha ah ay soo qaxeen ay kaamamkan ku wada nool yihiin si aan noloshooda u qiimeyno anagoo ujeedku u yahay inaan sameeyno afurin loo sameeynayo dadka danyarta ah gaar ahaan waliba kuwa ku nool kaamamka barnaamijkan waa Ramadaankii 7aad ay noqonaysaa aan qabanayno si joogto u qabanaya ururka Doosyo waxaan lagu garab istaagayaa dadka duruufaysan oo danyarta ah marka sidaas darteed maadaama beertooda aan rajaynayno inuu noqdo Ramadaan aan rabno inaan sameeyno afurin dadkaas danyarta oo sameeyno waa inaan marka hore indhendeyna si aan ogaano baahiyaha meesha ka xoogan ay ka jirto maadaama dalku inta ugu badan dhibaatooyin badan jirto oo abaaro jiraan dad badan ay soo qaxeen haddana meelba meela ka daran meelaha ugu adag oo ay nolosha ay ku adag tahay inaan garab istaag ku sameeyno ayaan indhendeynaynay aan rajaynaynaa inaan ku sameeyno kaamamkaani uu ka mid yahay kaamka nafta waa biyo la yiraahdo oo aan ku fulino barnaamijka afurinta ilaa iyo 500 qoys aan afurino ayaan rajaynaynaa insha Allah ururka Doosyo markasta wuxuu xoog saarayaa inuu garab istaag ku sameeyo dadka duruufaysan danyarta ah si ay u helaan nolol maalmeedkoodii ay u noolaadaan qofku markuu wax cuno uu haysto ayaa nolol kale uu ka fikiri karaa iyo horumar kale qof kasta Soomaali aan waajib ku saaran waxa uu kari kara awoodi kara inuu dalkiisa uga shaqeeyo ururka Doosyona markasta wuxuu ka shaqeynayaa arrimahaas wanaagsan oo dadkan duruufaysan in la garab istaago sidaas ayna ahaan doontaa insha Allah ururkana barnaamijkiisa sida joogtada u qaban jiray Ramadaanka oo afurinta uu sameyn doona mid ka mid ah horjoogayaasha kaamka ayaa ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo ugu mahadceliyay in uu ururka barnaamijka uu ku qabto sanadkan kaamkoodii maanta waxaan soo booqday ururka Doosyo waan ku mahadsan yihiin kaamkan waa soo tusnay waan ku soo wareejinay waxay noo sheegeen inay afurin siinayaan 500 iyo dheeraad qof degan kaamka waxaana ku yaala degmada Kaxda gaar ahaan Sarta Dulsan dhabarkeeda dambe kaamkan waxaa la yiraahdaa nafta waa biyo ururka Doosyona waa ka mahadsan yihiin mahad celin baa u naqayna hadii Ilaahay qadaro dadkana waa tawaalaysan dad hadda barakacayaal cusub hadda imaadeen marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
si kastaba ha ahaatee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosyo oo ka mid ah ururada ka dhisan magaalada Muqdisho ayaa sanadkan waxay ka mid tahay ururada sanad waliba ka qayb qaata inay afuriyaan dadka barakacayaashii sidoo kale dadka danta yar ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho haba ugu badnaatee dadku ay abaartu saameysay sanadkan aynu ku guda jirno 2026